Madaxweynaha kooxda Atletico de Madrid Enrique Cerezo ayaa xaqiijiyay in uusan wax cabsi ah ka qabin Cristiano Ronaldo kahor kulanka kooxda Juventus ay kula ciyaari doonaan tartanka xiisaha badan ee Champions League. Kooxda Roja Blancos ayaa kula ciyaari doonta dhigeeda Juventus bisha February wareegga 16 ee tartanka horyaalada Europe ee UEFA the Champions League. Cerezo ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska Tutto Sport ee ka soo baxa magaalada Turin ee dalka Talyaaniga waxa uu kaga hadlay kulanka Champions League ee dhexmari doona labada naadi ee Atletico iyo Islamada Bianconeri. waxaan isku dayi doonaa in Juventus aan ka ciribtirno tartankan inkastoo ay ka mid tahay kooxaha ugu xoog badan Yurub balse si aad ah ayaan u ixtiraameynaa. qof walba waxa uu doonayaa inuu u gudbo wareegga quarter finalka waxa uu sidoo kale u gaari karaa kulanka finalka balse waxaan doonaynaa nasiibkaas inaan yeelano. waxaan la soo kulannay Cristiano Ronaldo dhowr jeer oo aad ayaan u ixtiraameynaa laakiin isagu kama baqayno laakiin xaqiiqda ayaa ah waa ciyaaryahan weyn. Ronaldo waxa uu ku bixiyay qaab ciyaareed isku mid ah Real Madrid iyo si la mid ah kooxda shaydamada cascas ee Manchester United. waa hogaamiye dhab ah. si walba ahaatee Ronaldo ayaa ka hor yimid kooxda Atletico de Madrid dhowr kulan waxa uuna ka dhaliyay goolal badan markii uu joogay Bernabeu ee Real Madrid.